madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo iyo wafdigu hogaaminaya oo maalintii saddexaad socdaal shaqo u jooga magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa waxay madaxweynaha iyo wafdigiisu habeennimadii xalay ahayd ka qayb galeen munaasabad ballaaran oo loo qabtay daafurka xarunta lagu baarayo tayada shidaalka dalka soo galaya oo ay xukuumadda Somaliland ka hirgelisay hamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera iyadoo ugu horeyntiiba intii aanay bilaamin munaasabadaasi madaxweynaha Somaliland xadhiga ka jaray xaruntani lagu baarayo tayada shidaalka dalka soo galaya isagoo sidoo kale soo indheeyay qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay xaruntani kormeerkaasi kadib furitaanka munaasabadani waxa ugu horeyntiiba hadalka daafuray mareeyaha hamaha shidaalka Berbera Sheekh Saleebaan Siciid Cali oo si qoto dheer uga hadlay waxqabadka ay xukuumadda Somaliland ka hirgelisay hamaha shidaalka Berbera sidoo kalena waxa uu isbarbardhig ku sameeyay qaabkii hamuhu ay ahaayeen markii ay xukuumaysay shirkadii Total ee gaarka loo lahaa iyo maamulka hadda gacanta ku haya oo hoostaga xukuumadda Somaliland sidoo kale mareeyuhu waxa uu cadeeyay in dhammaan balaqabyo tiray hamaha lagu kaydiyo shidaalka Somaliland oo hore badankooda burbur aan la isticmaalin u ahaayeen isagoo mareeyuhu arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisii kamid ahaa mudane madaxweyne waxaa noo gabagaboobay dayactir ka badan oo ka waafisan kii ay Total samayn jirtay xilliga Total madaxweyne ka eriday halkan ee aad kaga dhawaysay ballanqaadkii aad ballanqaaday xilliga ololaha aad ku jirtay maxay ka faa'iiday qaranka Jamhuuriyadda Somaliland qaranka Jamhuuriyadda Somaliland wuxuu ka faa'iiday mudane madaxweyne erigii aad Total eriday waa marka koobaad shirkadaasi iyada keenay jirtay wixii shidaal loo baahnaa maanta 6 shirkadood oo muwaadiniina oo halkan idin la fadhiya oo barkood maraakiibta iyagu leeyihiin oo iyaga intaas oo shaqaale ah oo reer Somaliland ay u shaqeeyaan ayaa halkan idin la fadhiya sidoo kale waxa ayna munaasabadani ka hadlay gudoomiyaha gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin iyo mareeyaha dekedda Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xorxor iyo xubno kamid ah uqaasha gobolka Saaxil xildhibaano ka tirsan golayaasha guurtida iyo wakiilada Somaliland iyo dhamaantood mas'uuliyiintani ka marxaati kacay waxqabadka iyo horumarka laga fuliyay hamaha kaydka shidaalka ee magaalada Berbera iyagoo mas'uuliyiinta iyo shaqaalaha hamaha shidaalka Berbera ku amaanay waxqabadkaasi intii lagu guda jiray munaasabadaasi waxa ayna goobta ka hadlay wasiirada wasaaradda ganacsiga maaliyadda warfaafinta arrimaha gudaha Somaliland oo iyana si kooban uga hadlay barnaamijyada horumarineed ee laga fuliyay gobolka Saaxil waxayna iftiimiyeen in xaruntan xadhiga laga jaray ay tahay waxqabadka ballaaran ee xukuumadda Somaliland dalka ka fulisay laabkan waa wax aynu aad ugu baahnayn oo dhaqaalaheennana wax ka taraya runtii anu aad baan u amaanaya maarayaho kaliya amaani maayo waxaan wada amaanaya tiimkaa sida wanaagsan u wada shaqeeya waxaanan weliba ka rajaynayaa inay horumar badan sii gaadhaan oo sidaana u sii wada shaqeeyaan anigu waa support gareeyaa runtii iyagaasay iila yimaada oo soo qorshaysa waxooda ilaahay baa mahadle waxaan halkan isku soo taaganaynaa hambaliyo oo ishambaliyeyno guusha weyn ee gaadhnay maalin walo Berbera marka bil ka maqnaataba waxaad ku soo noqonaysaa isbedel cajiib ah waa ilaahay mahadi nin baa ila soo hadlay oo igu yiri miyeydaan Berbera joogin waxaan u malaynayaa inuu imaaraadka mooday halkan aanu joogno ma waa Berbera baan ku yiri alxamdulilaahi rabbil caalamiin meeshaasi ama shaybaarkaasi aynu maanta furnay ku dheeraan maayo muhiimadiisa horena waa looga hadlay in badan oo dadka ka midina way garan karaysaa waxa muuqata inaan dalna loo dhaamin dadkiisa iyo ummadiisa inaan loo dhaamin ee iyagu mas'uuliyadeedu ay saaran tahay waxa kale oo jecel halkaan uga mahad celiyo bulshada reer Saaxil ee markii madaxweynahoodu soo galay xuduudda gobolka si qalbi sami ah oo ay ku jirto farxadi iyo dhoola cadeyn ballaaran inay ku soo dhaweeyeen baan iyadana uga mahadnaqayaa madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaaniyo oo gabagabadiisna halkaasi ka hadlay ayaa maamulka iyo shaqaalaha hamaha shidaalka Berbera ku amaanay waxqabadkaasi
ay muddada kooban kaga hirgeliyeen haamaha shidaalka berbera waxaana uu yidhi farxad weyn aad iyo aad u weyn bay tahay in caawaynu halkan isugu nimaadno oo aynu xafladan sharafta iyo qiimaha leh aynu ka soo wada qayb galno marka ugu horeysa waxaan jecelahay inaan dadweynaha reer berbera aad iyo aad ugu mahadnaqo sida sharafta iyo qiimaha leh ee mar walba ay noo soo dhaweeyaan martiqaadka fiican soo dhaweynta fiican waxqabashada fiican iyo horumarka ay muujinayaan intaba aad iyo aad baan uga mahadnaqaya kuna hambalyeynaya waxaan leeyahay haddii aynu maanta halka isugu nimid oo aynu doonayno inaynu horumarkeena mar walba hor usii marno oo aynu ku tallaabsanno tallaabooyin ganacsigeenna haamaheenna kororsigeenna kor usii qaadaya inaynu marba inagoo wada jirra oo gacmaha is haysana oo meel uga soo wareejisana aynu ku tallaabsanaa waa lagama maarmaan intaasi kadib madaxweynaha Somaliland waxa uu shahaado sharafyo ku maamuusay maareeyaha haamaha shidaalka berbera Sheekh Saleebaan Siciid Cali wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Marwa Samsam Cabdi Aadan iyo mas'uuliyiinta shirkadda qalabkani keentay ee ku rakibtay xaruntani lagu baarayo tayada shidaalka dalka soo galaya kuwaas oo ku mutaystay wax qabadka baaxadda leh ay ka qayb qaateen waxaana munaasabada lagu soo afmeeray riwaayadaha heesa ay soo bandhigeen jilayaasha Sooraan iyo Jawaan iyo waliba fanaaniinta xiddigaha geeska Khalid Xasan Kharash telefishinka caalamiga ee Somali News magaalada Berbera.